habnololeedkii hore ee ku salaysnaa guurguurka iyadoo oo la raacayo isbeddelka xilliyada duugga iyo diraacda roobka iyo abaarta waxaa muuqata in looga digaroganayo isku dhaf beeraynimo xoolo dhaqasho. taas waxaa keenay iyadoo noloshii reer guuraannimo ay noqotay xilliba xilliga ka sii dambeeya mid sii adkaanaysa, dadkeennuna ay bilaabaan in ay ka siibtaan qaab nololeedkaasi aadka u facaweynaa. qaab adeegsiga dhulka waxaa ku socda isbeddel weyn, gaar ahaanna dhulka koonfur ka xiga Hargeysa. qoysas badan ayaa bilaabay inay degaan dhulkana beero roobaad ka fashaan. waxyaabaha ugu mudan ee ay beertaan waa hadhuudh, galley, digir, caws, yaanyo ama tamaandho, camba, babaay, salad iyo mararka qaarkood qaadka. inkasta oo uu kan dambe waa qaadka ee aanu lahayn tayo la tartami karta dhiggiisa ka yimaada Ethiopia, waxa kale oo ay dhaqdaan waxoogaa xoolo ah oo ay maalaan sida geela iyo riyaha, islamarkaana caanahooda u iibgeeyaan Hargeysa si ay ugu daboolaan baahiyaha kale ay leeyihiin. sida ku xusan qoraal uu dejiyey Akaademiga Nabadda iyo Horumarintu, wax soo saarka beer roobaadka ayaa il dhaqaale oo muhiima siiba xilliyada ay roobabku fiican yihiin, taasoo ay weheliso wax soo saarka xoolaha sida caanaha iyo iibka xoolaha. beeralayda badankoodu waxay beeraan haruurka iyo galleyda si ay calaf uga dhigaan xoolaha. isku halnay la'aanta roobabka ayaa badanaa keenta inaanay beeralaydu la sugin dalagoodu inuu bislaado ama gaadho xilligii goosashada. qoysaska intooda awoodi kartaa badi waxay samaystaan barkado si ay u kaydsadaan biyaha roobka oo badi ay u adeegsadaan cabitaan iyo waraabka xoolaha. inkastoo jiraan qoysas waxoogaaya oo biyaha qayb ka mida u adeegsada waraabka khudaarta iyo geedweynta qaarkood, ha yeeshee biyuhu marna uma wada qaybsami karaan baahida waraabka xoolaha iyo dhulbeerista. roob yaraanta iyo abaaraha soo kordhaya awgood waxaa muuqata in dhulbeeristu aanay noqon karin mid lagu bedelan karo xoolodhaqatanimada haddii aanay wax iska bedelin. qaabka kaydinta biyaha iyo maaraynta dhulka waa in la xoojiyo ka faa'iidaysiga biyaha xaddiga yar ee xilli roobaadka la helo. waxyaabaha u fududayn kara beeralaydu in ay wax kala soo bixi karaan dabeecadda dhulka ee adag waxaa ka mid a aqoontooda, farsamadooda beerfalidda oo la xoojiyo, helitaanka shaqaale ku filan iyo saylada dhiirigeliya joogtiinta wax soo saarkooda. dhibaatooyinka ugu badan waxaa ka mid a in waxa ay beeraan isku xilli soo go'o, taasoo saamayn taban ku yeelata suuqa maxalliga ah ee ay ka iibiyaan dalagyadooda, waxaana laga yaabaa inay kala kulmaan khasaare aan ka soo kabasho lahayn oo ka niyad jabiya wax soo saarkaasi. waxaa kale oo jira in hay-adaha caalamiga ama maxalliga ahi aanay xoogga saareen inay suuq u sameeyaan dalagyada asaaska u ah beeralayda sida galleyda, hadhuurka, kaydna loo sameeyo si reer guuraaga loogu qaybiyo xilliyada duruufaha adagi soo food saaraan.